Kulanti waxaan asxaab meel walba joogtaa kuna soo dhawaada kanaalka arrimaha fanka halkaan maanta waxaan kugu soo gudbin doonaa arrimaha aflaanta ama aflaanta tiyaatarada Hindiya saaran iyo wararkii ugu dambeeyay arrimaha aflaanta. Waxaana ku bilaabi doonaa filimka Good News oo tiyaatarada isbuucan saarnaa. Filimkan waxa uu sameeyay ganacsi aan caadi ahayn toddobaadkiisa koowaad waxa uuna keenay lacago gaarayaan 126 karoor toddobaadkiisa koowaad oo kaliya. Filimkan wuxuu si fiican isku celceliyay maalmaha shaqada asigoona ka faa'iidaystay fasaxii jiray. Filimkan wuxuu soo xareeyay 3 maalmood ugu horeysay toddobaadkiisa 65 karoor halka 4 maalin oo kale ay ka dambeysay uu keenay 61 karoor. Filimkan hubaal waa hit waxaana laga rabaa in uu gaaro darajada super hit. Xitaa waxa uu haystaa maalmo ku filan toddobaadkiisa labaad oo ganacsi fiican ku sameyn doona. Filimkan jumcadiisa koowaad waxa uu keenay 17.50 karoor, sabtidiisa koowaad waxa uu keenay 21.50 karoor, axadiisa koowaad waxa uu keenay 26 karoor, isniintiisa koowaad waxa uu keenay 13 karoor, talaadada waxa uu keenay 15.50 karoor, arbacada waxa uu keenay 22.25 karoor, khamiis waxa uu keenay 10.25 karoor, total 126 karoor weeyaan lacagaha uu keenay filimkan. Sidoo kale Akshay Kumar waxa uu haystaa 3 super hit marka kan lagu daro. Dhanka kale hit kale ayuu haystaa oo filimka Kesari lagu magacaabo isla sanadkan gudihiisa ayaana loo daawaday. Ninkan nin caadi imaan. Dhanka kale filimka Debanka 3 ayaa asna toddobaadkiisa labaad ganacsi hooseeya sameeyay. Filimkan waxa uu keenay toddobaadkiisa labaad lacago gaarayaan 20 karoor waxa uuna ka faa'iidaystay ama maalmaha ciidaha fasaxa maalmaha ciida jiray ciida sanadka. Haddii kale lacagaha intaan way ka yaraan lahaayeen. Labadiisa toddobaad waxa uu keenay lacago gaarayaan 133.75 karoor. Filimkan laba toddobaad ayuu ku soo xareeyay 133.75 karoor halka filimka Good News uu keenay 126 karoor hal toddobaad oo kaliya. Waxaa loo maleeyaa in sanadkan ay ku daadsan tahay 3 sano ugu dambeeyay Salman Khan. Wax badanna ma soo xareyn doono filimkan. Ugu dambeyn waxaa laga yaabaa in uu gaaro ilaa 140 karoor. Sidoo kale filimkan waxaa lagu saadaaliyay in uu gaari doono 150 karoor cimri ahaantiisa. Sidoo kale filimkan waxa uu noqonayaa filimkii labaad ee ugu xumaa uu sameeyo actor-ka caanka ah ama King of Bollywood Salman Khan 10 sano ugu dambeeyay kadib Veer kaasoo la daawaday 2010. Filimkan sidoo kale waxa uu ka hooseyn doonaa filimka Duplicate inkastoo uu dhaafi doono filimka Veer. Ganacsiga Debanka jimcada toddobaadkiisa koowaad waxa uu keenay 113.75 karoor ayuu keenay halka toddobaadkiisa labaad uu keenay 20 karoor oo xarash 6 maalmood ah. Dhanka kale waxaa la soo saaray filimka ugu fiicnaa 2010 ilaa iyo 2019 10 sano filimka ugu fiicnaa waxaa la doortay filimka weyn oo hogaamiyaha ka yahay ninka caanka ah Barfas waa Bahubali The Collection. Filimka labaad waxaa loo doortay filimka Bajrangi Bhaijaan kaasoo hogaamiyaha ka yahay Salman Khan. Filimka saddexaad waa isla asigii qaybtiisa koowaad Bahubali The Beginning. Dhanka kale waxaa la soo saaray Top of 20 Crores and First Week. Aflaanta isbuucda koowaad lacaga u fiican keenay. Akshay Kumar filimkiisa Good News waxa uu ka galay kaalinta 5aad waxaana hogaamiyaha ka ah 20 filim filimka War kaasoo ay hogaamiyaal ka yihiin Tiger Shroff iyo Hrithik Roshan.
waxaana halkan u eg warbixinada maanta aan kusoo qaadanay labada filim ee kala ah The Bank iyo The Bank 3 iyo Houseville Good News. waxaana idinkaga tegaynaa sidaas nabadgelyo, laakiin ogeysiis fadlan subscribe saar gabbalaalkan riix si muuqaal walbo aan soo dhigno ay si degdeg ay kugu soo dhacaan. waad mahadsantahay daawashada aad daawaatay. mahadsanid.